magacayga waa Cabdiweli Dhegey ku dhashay Soomaaliya ku nool wadanka Australia qaasaan Salisbury gobolka Salisbury inta badan dadka Soomaalida waxa la yiraahdaa markay wadamada Yurub ka imaadaan shaqada ugu badan ay qabtaan waa taxi maxaa malaysaa laga jeclaa shaqadaas dabcan hadee shaqooyin kalena waa laga shaqeeyaa waa ku soo shaqeyn jirnay laakiin shaqadan hadda waxa uu aragnay shaqo aad xor u tahay macnaha xagga salaadaada kale xagga sida familka kale maadaama Soomaalida iska famil badan yihiin taasa waa aragnaa macnaha jaaniskeeda jirto shaqooyinka kale ka fududa waayo shaqooyin kale marka ka shaqeyso caqabad ku qabanaya waxa waaye dabcan fasax ma wadiin kartid ilmaha ka xanuunsan karo marka saad darteed tan waa isku wadi kartaa macnaha shaqadii iyo reerkii wax walba isku wadi kartaa ma karanta wax caqabada oo shaqadan hadda taxi laftigeeda waa shaqo dhib badan wax caqabado ka hormaadaysa dabcan adiga caqabada saas badan ma jiro oo habeenkii oo kale marka shaqeysa laga yaabaa qof iska cabsan ama qof la koronto laakiin badanaa dadka intooda badan boqolkiiba 95 waa dad fiican waa ma garatay iyaga waxa caqabado dadka bulshooyinka qaasad qiimaysa malaha ma leh waa aad u fiican yahay qof waa laga yaabaa qof waa laga yaabaa ku yiraahdo madowata kuma raacayo kale inuu kaga yimaado laakiin boqolkiiba intooda badan waa dad fiican waa ma garatay xaga ku fiican markaan eegno magaalada Salisbury Soomaali inteleg baa ku nool qiyaasta waxaan qiyaasiyaa ilaa 500 qof oo malina qiyaasta 500 qof Soomaalida markaa joogta meel ay isugu imaadaan bulshooyin may leeyihiin jaaliyad dabcan waa leenahay jaaliyada noo jirto ilaa 5 sano 6 sano shaqeynaysay meeshay Soomaalida jiro dukaan Soomaalida jiro dabcan hadii wadanka waa lagu soo badanaa maalmaanta ka dambaysa waxa kale oo diimaanaya ma karatay marka isogaanshaha Soomaalida inta badan Soomaalida caqabado badan baa ka hor yimaada ugu badnaatay tii wadankii Soomaaliya looga imaado kala ha ahaato xagga qabiilka marka waxa la magaalada Salisbury xagga caqabadaha sidee ka anaga halkaas runtii alxamdulillah aad ugu fiican dad isku duubanaanahay dabcan hadii nin walba qabiil waa ka dhashay laakiin dad isku duuban oo dantooda yaqaano meeshan hadii nin walba nin wax ku siiyay ma leh nin walba asaga dantiisa wata ma kara laakiin waa isku duubanahay wixii dib ka dhaco wixii naga dhaco waa isku garab taaganahay marka alxamdulillah taas aad ugu fiicanahay Soomaalida kale wala cabo wadanka aad ugu fiicanahay ma kara tagi doona marka waa maad maadsantahay adinka